madaxweyne farmaajo oo kulan xasaasi ah la qaatay dhaqanka beelweynta habargidir oo booqday guriga miranaayo uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo maxay ka wada hadleen kulankan xasaasiga ah maxaa la isku dhaafsaday waxaan ku soo gudbin doonaa xog iyo macluumaad arintaasi ku aadan qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya dawladda federaalka Soomaaliya oo hanjabaad culus u dirtay madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa iyo wasiir fiqi oo la duldhigay amar culus oo ka dhan ah madaxweyne Farmaajo waxaan kula wadaagi doonaa xog iyo macluumaad arintaasi ku aadan qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya ciidankii weerari lahaa magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag oo hadda ka baxay taliska Gooja Cadde iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa oo ka bilowday duleedka magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag xogta macluumaadka wararkii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyada culus ee ka soconaya magaalada Ceergaabo duleedkeeda ayaan kula wadaagi doonaa ciidankan wata gaadiidka dagaalka ee ka ambabaxay taliska Gooja Cadde ee la faray inay duulaan culus ku qaadaan magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya maxkamadaynta General Faisal Cabdi Bootaan iyo saraakiil kale oo ciidan oo muddo 2 sano iyo bar ah ku xirnaa xabsiga magaalada Laascaanood oo xilligan la amray in la diyaariyo kadib doodii cuslayd ee ka dhalatay siideynta maxaabiistan haddaba maxaa lagu xukumi karaa Faisal Cabdi Bootaan iyo ragga la midka ah waxaan ku soo gudbin doonaa macluumaad xogo dhameystiran oo arintaasi la xiriira iyo dhaqdhaqaaqyada culus ee ka soconaya gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qodobada iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay nagu soo biir like share muuqaalkan subscribe boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan ku qaadaa dhigno soo dhawaada daawadayaal haddii aad haddana la soo qabsateen waxaan ku leenahay like ta naga hilmaamin sidoo kale muuqaalkan si share garay si saaxiibo adiga kula mid u gaaro hagaag geedigeena 100,000 adiga ayaa ka dhimane fadlan subscribe dheh watahay waxaan ku bilaabayaa qaybaha ugu horeeya ee wararkeena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho oo loolihiisa dhinaca doorashadana ka bilaabay aaga Miranaayo oo ah halkii markaasi xabadda looga soo riday xilligii uu ka arriminayay filla Soomaaliya ayaa waxa kulamo xasaasi ah saacadii la soo dhaafay la qaatay odayaasha dhaqanka beelweynta habargidir kuwaasi oo la sheegay in ay booqdeen hooyiga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo xogta iyo macluumaadka la helay waxa ay tilmaamayaan in odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelweynta habargidir oo maalmihii ugu dambeeyay kulamo cabasho ah ku qabanayay magaalada Muqdisho ay markaasi la kulmeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo xilligan ku sugan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ayaa la wadaagay arinta la xiriirta xaaladda dalka iyo sidoo kale dhaqanka beelweynta habargidir sida xilligan ugu macquulsan oo ay u taageeri karaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ololihiisa dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale doorashadaba ka bilaabay magaalada Muqdisho waxaana odayaasha si kale iyo laab ah u soo dhaweeyay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ugaas علي حوش iyo sidoo kale ugaasyo kale oo markaa qayb ka ah dhaqanka beelweynta habargidir ayaa booqday hooyiga madaxweyne Farmaajo waxaana la tilmaamay in odayaasha dhaqanka ay markaasi la wadaageen madaxweyne Farmaajo xaalka siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale in madaxweyne Farmaajo xilligan uu mudan yahay in markaasi lagu taageero in uu mar kale dib ugu soo laabto talada dalka dhaqanka beelweynta habargidir ayaa raali gelin ugu tagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ugaas Cali Xaashi ayaana qayb ka ahaa raggii booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo dhaqanka beelweynta habargidir oo qaybo badan oo kamid ah ay markaasi qayb ka ahaayeen raggii markaasi booqashada ugu tagay imaam iyo sidoo kale rag kale ayaa iyaguna markaasi qayb ka ahaa markaasi raggii booqashada ugu tagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dhammaan wada hadaladii dhinacyada ay qaateen ayaa ku soo dhamaaday is-afgarad kadib markii dhinacyadu ay ku heshiiyeen in laga qayb qaato madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo
arintiisa sidoo kalena markaasi odayaasha dhaqanka iyo guud ahaanba beelweynta habargidir in markaa ay ka qayb qaataan arinta la xiriirta ololaha la doonayo in mar kale lagu taageero madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo xilligan la tilmaamay in xaaladiisa ay tahay markaasi mid uu ku doonayo in dalka mar kale uu dib ugu soo laabto sidoo kalena uu ku hanto doorashada markaasi la filayo in ay dalka ka dhacdo oo sanadkan markii uu dhamaado sanadka kale ee ku xiga 2026 loo dareeri doono doorashada odayaasha dhaqanka waxay sheegeen in xilligan wixii ka dambeeya cid kale aysan taageeri doonin sidoo kalena ay markaasi qayb ka noqon doonaan ragga ugu horeeya ee taageeraya madaxweyne Farmaajo imaam Umar Macalin Abshir ayaa sidoo kale qayb ka ahaa raggii booqashada ugu tagay madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ugaas Cali Xaashi iyo rag kale oo fara badan oo qayb ka ah dhaqanka talada ay ka go'do ee beelweynta habargidir wararka qaar ayaa sheegaya in xitaa uu ku jiray raggii booqashada ugu tagay nabadoon Cabdinuur Axmed Diiriye oo ah afayeenka dhaqanka beelaha Hawiye oo isaguna qayb ka ah beelweynta habargidir marka loo eego qabaa'ilaadka markaasi ee ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dhaqanku waxa ay sheegeen in la aqbali karo madaxweyne Farmaajo xilligan in marka la dalka dib ugu soo laabto iyadoo kulamadii xasaasiga ahaa ay wada qaateen lagu soo hadal qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa iyagoo dhaqanka qaar tirsanaya in dadkii ku dhaqnaa deegaano iyo degmooyin markaasi ka tirsan gobolka Banaadir in markaa la barakiciyay dhulkoodina markaa uu la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayay madaxweyne Farmaajo la tilmaamay in markaasi ay la wadaageen xogo xasaasi ah oo xilligan ay tilmaameen in madaxweynaha markaasi lagu taageeri karo maadaama 5 sano ee la soo dhaafay ee madaxweyne Farmaajo dalkan hogaaminayay aysan ka dhicin arrimaha la xiriira dhinaca markaasi dhulalka iyo hantida muguurtada ah in dawladdu ay la wareegto haddaba wuxuu ku soo kordhaa wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan laakiin adiga ay daawanaya sidee baad u aragtaa in odayaasha dhaqanka beelweynta habargidir in ay u tagaan madaxweyne Farmaajo sidoo kalena ay markaa wada qaataan kulamo xasaasi ah oo xitaa la tilmaamay in ay raaligelin ugu tageen dhaqanka markaasi madaxweyne Farmaajo oo ay sheegeen in 5 sano ee la soo dhaafay waxyaabihii lagu haystay ay ahaayeen wax qaldan aragtidaada qaybaha hoose commentiga nagu wadaag markana dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hanjabaad culus u dirtay madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa waxaana wasiir fiqi oo kamid ah wasiirada ugu muhiimsan dawladda dhexe federaalka Soomaaliya la dul dhigay amar culus oo ka dhan ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo filla Soomaaliya ayaa la sheegay in ay soo saartay qaraar ka dhan ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo xilligan deegaansaday aaga Marinaayo kaasi oo wada dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa oo ku doonayo in mar kale dib ugu soo laabto talada dalka waxaana gurigiisa mashquulkii ugu xooganaa xilligan uu ka muuqanayaa iyadoo aan la gaarinba ololihii dhinaca doorashada iyo mandate-ka muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo 6 bilood ah ay ka dhiman tahay filla Soomaaliya ayaa la sheegay in ay aad uga carootay arinta la xiriirta in madaxweyne Farmaajo gurigiisa laga dareemo mashquulkii ugu xooganaa dad badan oo siyaasiyiin ah odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshadana in halkaasi ay ku sii qulqulaan iyadoo xilligan markaasi dhacdooyinkaasi ay yihiin kuwa markaa hoga tusaaleynaya in madaxweyne Farmaajo markan uu la soo baxayo taageero kale oo waali ah oo uu ku doonayo in mar kale lagu doorto sidoo kalena markaa xisbiga iminka talada haya ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu uga guuleysto dhawaan waxaa la filayaa in xariga laga jaro xisbiga nabad iyo nolol taa oo ay doonayso dawladda dhexe federaalka Soomaaliya in ay ka hortagto maadaama la doonayo xisbigan in lagu shaaciyo meel fagaara ah sidoo kalena ay ka shaqeynayaan siyaasiyiin iyo sidoo kale saraakiil ciidan in xitaa xisbigan lagu xarig jaro halka la yiraahdo Stadio Muqdisho oo markaa ah isbartiibada xilligan lagu qabto shirarka waaweyn iyo sidoo kale markaasi kulamada ciyaaraha xilligan markaa ku soo idlaaday magaalada caasimadda ah Muqdisho ugu dambeeyay tartankii degmooyinka arintan waxaa la sheegay in filla Soomaaliya ay ku amartay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya in tallaabo cad uu qaado iyadoo xalay markaasi wasiir fiqi uu sheegay in kooxda Farmaajo aysan jirin wax markaa ay galaan
tabar badan oo ay leeyihiin iyo awood mar kale lagu aamini karo oo dalkan ay dib ugu soo laaban karaan iyadoo wasiir fiqina si hoose loo sheegayay in maalmihii lasoo dhaafay uu qayb ka ah siyaasiyiinta lugta ka bixin lahaa guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo sidoo kalena booqanayay xogaha iyo macluumaadka la xaqiijiyay waxa ay tilmaamayaan in wasiir fiqi xilligan oo markaasi noqday afayeenka xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga oo markaasi bilaabay weerarka siyaasiyiinta ka aragtida duwan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay meel fagaarayaal ah oo ku karbaashayay arrintaasi oo la sheegay in wasiir fiqi markaasi ay macno dilayso in mar kale lagu aamino xil markaa macquul ah oo qayb uu ka yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xogaha iyo macluumaadka la helay waxa ay sheegayaan in aaga guriga Mirinaayo uu ka degan yahay madaxweyne Farmaajo xilligan la tilmaamay in la diyaarinayo ciidamo kale oo hor leh oo la dhigo marka laga soo tago kuwa galeyr ee halkaasi la dhigay ee baaritaanada culus ka bilaabay sida aan ku baahinay xogihii macluumaadkii hore ee aan idiin soo gudbinay haddaba wixii ku soo kordho wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dalo uu raali ka noqdo laakiin sidee u aragtaa in wasiir fiqi xilligan uu markaasi noqonayo wasiir afhayeen u ah xukuumadda hadda jirta ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyo aragtidaada sidee u aragtaa in siyaasiyiinta ka aragtida duwan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu weeraro wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo la heli karo afhayeen ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya وهجاج ولي وركنا يا داونيسان مركنا ciidankii weerari lahaa magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag ayaa ka ambabaxay daqiiqado ka hor taliska Gooja Cadde oo ah goob xilligan lagu tababarayay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa maamulka Waqooyi Bari Cabdulqaadir Firdhiye ayaa xilligan u muuqda in uu seefta gasha kala baxay isaga oo weeraraya ee markaasi magaalada Ceergaabo xilli shalay uu ka hor sheegay baarlamaanka maamulka Waqooyi Bari in markaasi la diyaariyay ciidankii ugu badnaa oo gacanta ku dhigi lahaa magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo waxa ay ka mid tahay meelaha istiraatiijiga ah ee xilligan maamulka Waqooyi Bari gacantiisa ka maqan isla markaana la doonayo in gacanta lagu soo dhigo magaaladaasi iyo deegaanada kale ee la midka ah ee ka tirsan gobolka markaasi Sanaag gobolka Sanaag hadii magaalada Ceergaabo Firdhiye uu gacanta ku dhigo waxa ay noqonaysaa in magaalada Ceergaabo xilligan ay markaa helayso maamulka madax banaan maamulka Somaliland ee muddada dheer ka ariminayay laakiin waxa ka sokeeya in dhimbilaha lacaayo la isku adeegsado iyo sidoo kale xabada ka dhacaysa qoriga caaradiisa taasi oo garta ee markaasi ku ridi karta hal dhinac maadaama gari laba nin aysan ka wada qoslinaynin marka la isku qabto dagaalkuna uu sidaas oo kale yahay dadka u darasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxa ay tilmaameen in duulaan culus uu ku wajahan yahay magaalada Ceergaabo iyadoo ciidan aad u fara badan oo wata hubka iyo gaadiidka dagaalkana la arkayay iyagoo ka ambabaxaya xerada Gooja Cadde Cabdulqaadir Firdhiye ayaa xilligan gaaray go'aan culus oo biyo kama dhibcaan ah kaasi oo la sheegay in uu gacanta ugu dhigayo magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag halkaasi oo dhaqdhaqaaqyada ugu cuslaa muddooyinkii la soo dhaafay ay ka wadeen ciidanka maamulka ee markaasi Somaliland xogaha iyo macluumaadka la xaqiijiyay ee la helayo waxa ay tilmaamayaan in ciidanka Ceergaabo ka ambabaxay ay heleen hub iyo saanad ciidan waa ciidanka ka ambabaxay Gooja Cadde ay heleen hub iyo saanad ciidan oo aad u fara badan taasi oo keentay in markaasi dabcan xilligan la qaado weerarkii ugu cuslaa iyadoo Cabdulqaadir Firdhiye la tilmaamay in xalay uu booqday taliska Gooja Cadde ciidamadana ay yihiin kuwa markaasi si gaar ah loo tababaray oo loogu talagalay in ay qayb ka noqdaan howlgalka ka dhanka ah ciidanka maamulka Somaliland ee xilligan la doonayo in gacanta loogu dhigo magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag wixii ku soo kordho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan ma kula tahay in maamulka Waqooyi Bari xilligan uu gacanta ku dhigi karo magaalada Ceergaabo aragtidaada qaybaha hoose commentiga nagula wadaag waa hagaag ugu dambeyntiina maxkamadaynta General Faisal Cabdi Bootaan iyo saraakiil ciidan oo ka mid yahay oo ku xirnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa xilligan si rasmi ah markaasi loo shaaciyay xilliga ay dhacayso maxkamadayntooda maamulka Cabdulqaadir Firdhiye uu hogaaminayo ayaa xilligan waxa ku markaasi furmay dood culus oo ku aadanayd in la sii deynayo maxaabiistan oo ku xirnaa xabsiga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool arintaasi oo doodii ugu cuslayd dhalisay Cabdulqaadir Firdhiye waxa uu sheegay in maxaabiistan ay yihiin dambiilayaal aan la sii deyn doonin sidoo kalena General Faisal Cabdi Bootaan iyo ragga uu la midka yahay 2 sano iyo bar kadib la soo taagi doono maxkamadda maamulka Waqooyi Bari oo xilligan la doonayo in xariga laga jaro
qabanqaabada soo taagitaanka waa maxkamadda ayaa xilligan waxaa markaasi la sheegay in loo xil saaray guddi gaar ah kaasi oo ka shaqaynaya in maxkamad la soo taago Faysal Cabdi Bootaan xubno baarayaal ah ayaa la sheegay in loo diray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo ka ambabaxay magaalada caasimadda ah Muqdisho Cabdulqaadir Firdhiye ayaa bilaabay tallaabooyin culus oo uu doonayo in xilligan uu ku maxkamadeeyo ragga uu ka mid yahay Faysal Cabdi Bootaan ee xilligan dood adag ay ka dhalatay arrinta la xiriirta siideyntooda kadib markii maamulka waqooyi bari ay ku dhawaaqeen arrintaasi iyadoo markii dambena cadaadis xooggan oo soo koray Cabdulqaadir Firdhiye dabadeed dib looga laabtay markaasina ay xilligan baarlamanku amreen in markaasi la diyaariyo maxkamadeynta raggan haddii Faysal Cabdi Bootaan iyo ragga la midka ah xilligan maxkamad la soo taago maxay dhaxli karaan ayaad isleedahay dadka qaar ee oo darasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay tilmaameen in Faysal Cabdi Bootaan iyo ragga la midka ah xilligan loo baahan yahay in markaasi maxkamad la soo taago sharciga waxa uu ku xukumi karana ay noqon karto in markaasi raggaas tirka toogashada la geeyo maadaama dad badan ay u godgaleen markaasi madaafiicdii ay ku garaacayeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wixii ku soo kordho wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno